السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دعوة ديال كسر دوالة برنامج كنا جناحسيا ودين كيجي معنا يا حرمتو تي في كلا سنة وكلية مجال كمبالا يا عاصمة الضلك يوغندا وحين لسه عزيز دون ضوات كان نيجو عبد الوهاب إبراهيم عبدي daawadayaal halkan waxaa aad ugu badan ganacsato Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan Uganda waxaan goobahooda ganacsi ku booqanay waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayagoo ka warbixiyay habkay ugu ganacsadaan dalkani mudane mas'uul aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo xubinta ganacsiga Kalsan TV ganacsigan Kampala ku hayo waa kala duwan yahay waxa kamid ah inaan maaragtay suuqan u sameeyno supermarketyada ama cosmetics sida jaamacadaha oo kale sidaas awgeed uu kala duwan yahay marka meesha hadda joognana waa supermarketkii weey ama cosmeticskii weey dadkuna sidaas awgeed buu kala duwan yahay run ahaantii waxaan bilaabay 5 bilood ka hor baan bilaabay ayadoo caqabado badan ama systemyo badan ka jiraan marka wax bilaabaysi bilowga hore waxay ku noqonaysaa ifafaalo fiican bay ku noqonaysaa laakiin ma sha Allah maanta waa aragtaa inaan ugu soo booqatid waxyaabo naga weydiisid ma sha Allah markii dalkan qaabo badan baa loo ganacsadaa hadda Soomaalinahay noo qaabka koobaad aan ku ganacsano waxa weeye inaan horta keeno jumladii iyo adeegyo badan oo kala duwan cosmetics ka mid yahay dalab badan aan ku dirno sidaas awgeed aan suuqgeyn ku sameynaa sidoo kale ganacsiyada aan booqanay waxa kamid ah Kisenyi Diamond Supermarket السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسر دوا أنا وحالي هذا آدم محمد علي دكان كنا وحالي هذا كيسيني دايمول شوب كاستمر كسر دوينا ديسكاونت توصل مينا مدي كلا كان عسكنا معنا ومحمو واسبتعنا الحمد لله كوسماتيكا عانها iyo qaybna maacun way alaabaha adiga guriga loo isticmaalo oo cuntada oo kala waxaan kala cabitaan iyo waxyaalo badan aan ku ganaa meeshaas oo la soo koobi karo ganacsigeena wuxuu duwan yahay aniga alaabo badan oo hajirto oo Kenya naga yimaado sida oo kala biriiska caanaha halka wadanka laga helo hadii sokorta iyo burka halka wadanka waa laga helaa laakiin waxyaalo badan oo hajirto sida cosmetic oo kala sida oo caanaha sokola kulli waxa naga yimaadaan xagga wadanka Kenya iyo Suudaan oo naga yimaadaan Soomaalida macna aadan wax noo gaato adama aan Soomaalida afkooda iskarneeno teedii kale nimanka muddo wax waa gataan laakiin ma badno laakiin ganacsiga aad wax loo gato waxa Soomaalida bulshada waxa uu sheegay laay macnaha xagga ganacsiga dadka macnaha inay ganacsi ay sameeyaan Uganda oo kala qofka macnaha oo shaqeysto sida oo kala macnaha wada walbo ay joogan oo ay macnaha saas oo ganacsi ay sameeyaan oo horumarka ay macnaha ay ku gaaraan anaga Soomaaliyeed aan macnaha wadamadan shisheeyaan joogno ganacsiga macnaha waa iska macnaha waa wana ilaahay uma tawakkal saarnay waana ilaahayna nagu amaan geli wadanka halkan waa Kisenyi Diamond Shop waa supermarketyada Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Kampala midka ugu biisiga badan barnaamijka nagala socotaan waa xubinta ganacsiga ee Kalsan TV Abdul Wahab Ibrahim Abdi Kalsan TV magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda